saaxiriinta ayaa aad ugu nugul xanuunka dhimirka marka loo eego fanaaniinta kale ayaa helay cilmi baaris. Daraasada jaamacadda Aberystwyth ayaa marka hore soo bandhigtay koox hal abuur leh oo leh buundooyin ka hooseeya sifooyinka nafsiga ah marka loo eego dadweynaha guud. Noocyada hal abuurka, fanaaniinta, rinjiyaasha, qorayaasha ayaa inta badan loo arkaa inay yihiin kuwa la dhibay oo dhib badan, laakiin daraasad ayaa muujisay in ugu yaraan qayb ka mid ah qaybaha bulshada farshaxanku ay fahmeen qiyaamada ah in si fiican loo dheelitiro. Daraasad lagu sameeyey saaxiriinta adduunka oo dhan, oo ay hoggaamiso qaybta cilmi nafsiga ee jaamacadda Aberystwyth, ayaa soo jeedinaysa in khayaaliyaasha laga yaabo inay u nugul yihiin dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda marka loo eego hal abuurka kale iyo guud ahaan dadweynaha. Cilmi baadhistan oo Arbacadii lagu daabacay joornaalka Psychic Open ayaa lagu cabbiray sifooyinka nafsiga ah ee ku dhowaad 2 oo saaxiriin ah, waxaanay natiijada la barbar dhigtay xogta kooxaha kale ee fanka iyo guud ahaan dadweynaha. Waxa ay soo gabagabaysay in saaxiriintu ay aad uga hooseeyaan noocyada kale ee hal abuurka iyo dadka caadiga ah. Inkasta oo ay shaqadoodu ku lug leedahay dhalanteedka ah in si qarsoodi ah loo galo, saaxiriintu waxay u badnayd inay la kulmaan waayo aragnimo aan caadi ahayn sida mala awaal ama maskax xumo. Daraasaddu waxay ogaatay. Gil Green-Gross, oo hoggaaminayay cilmi baarista, ayaa sheegay in ay tahay daraasaddii ugu horreysay ee lagu muujiyo koox hal abuur leh oo leh dhibco hoose oo ku saabsan sifooyinka nafsiga ah marka loo eego dadweynaha guud. Waxa uu yidhi, cilmi baadhisteenu waxay muujinaysaa in saaxiriintu aanay soo bandhigin heerarka sare ee xanuunka dhimirka. Natiijooyinku waxay muujinayaan in xidhiidhka ka dhexeeya hal abuurka iyo cilmi nafsiga uu ka adag yahay sidii hore loo malaynayay. Naag ku sita orso xiiran oo iftiin cas leh. Green-Gross waxa uu sheegay in saaxiriintu ay heleen hoos u dhac ku yimi aan habboonayn, taas oo ah dabeecad la xidhiidha dhaqanka bulshada ka soo horjeeda iyo isxakamaynta hoose. Sifadani waxay qiimo u leedahay kooxo badan oo hal abuur leh, sida qorayaasha, abwaanada iyo majaajiliistayaasha, kuwaas oo ficiladoodu ay inta badan yihiin kuwo qalafsan oo caqabad ku ah xikmadaha caadiga ah. Sixiroolayaashu si isku mid ah ayay u noqon karaan kuwo cusub oo riixaya xadka. Si kastaba ha ahaatee, saaxiriin badan ayaa sameeya khiyaamo la yaqaan ama kala duwanaanshahooda iyaga oo aan dareemin baahida loo qabo in la cusboonaysiiyo. Saaxiriinta waxaa lagu shaqaalaysiiyey caawinaad kooxo ay ka mid yihiin Sixirka Circle ee UK, Society of American Magicians iyo International Brotherhood of Magicians. Ka qaybgalayaashu waxay dadoodu ahayd 9 jir. Sarah Carson, oo ah saaxirad New York ah oo ka shaqaysay daraasadda, ayaa sheegtay inay jiraan sababo ay saaxiriintu u noqon karaan kuwo dheelitiran. Mid ka mid ah waxyaabaha aan inta badan samayno markaan kulanno waa inaan wadaagno sheekadeenna asalka ah, sideen ku soo galnay fankan. Aad iyo aad ayay u badan tahay in sixirka ragga, gaar ahaan ragga dadoodu u dhaxayso 8 iyo 4, ay u yimaadaan si ay uga gudbaan cillad bulsho. Waxaa laga yaabaa in xoogsheegga uusan garaacin iyaga haddii ay tusi karaan cagajuglaynta khiyaano qabow. Sixirku wuxuu ahaa hab lagu helo xaalad bulsho oo wanaagsan iyo feejignaan, ayay tidhi. Waxay inta badan caawisaa in laga gudbo xirfad la'aanta bulshada. Waxay ku siinaysaa kalsooni oo runtii way ku dhisi kartaa, waxayna kaa caawin kartaa inaad ka gudubto arrimaha. Waxaan filayaa in sixirkaasi uu wax tarayo. Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in astaamaha caafimaadka maskaxda ee saaxiriinta ay la mid yihiin kuwa xisaabta iyo saynis yahanada. Carson wuxuu sheegay in saxnimadu ay tahay qayb muhiim ah oo sixirka ah. Waxaa jira wax badan oo sax ah oo ku saabsan sida gabadh loo fuliyo. Marka aad aragto saaxir sare oo wax ka qabanaya dhaqaaq kasta, eray kasta, macno iyo fikir ayaa jira. Carson waxay la shaqaysaa orso koolkoolin oo la yiraahdo Bamberg iyada oo falanqaynaysa, laakiin waxay sheegtay in uu jiro iskaashi aad u weyn oo bini'aadamka ah ee sixirka. Waa wax aan aad u jecelnahay. Inkasta oo aan nahay tartamayaal, waxaan sidoo kale nahay saaxiibo wanaagsan.
waxaa jira dad aan kula tartami lahaa gig laakiin sidoo kale waxaan dhihi doonaa haye tan ayaan ka shaqaynayaa maxaad u malaynaysaa waa bulsho cajiib ah awowgay wuxuu ahaa dhakhtarka ilkaha aabbahay oo sidoo kale ahaa saaxir wuxuu jeclaa inuu yidhaahdo dhakhaatiirta kale ee ilkuhu ma la wadaagayaan habka ay isku xidhaan ilkaha laakiin waxaan u tegay fanaaniin waxaanan ku idhi waan jeclaa waxaad samaysay ma i bari kartaa qaybtaas ka mid ah oo waxay odhan jireen runtii waa kan sidaad u samaysid barakadayda ayaad haysataa isku duubnida noocan ahi runtii waa mid awood badan